Tomorrow raguma wado xume daaya daaya oy daaya tomorrow jooga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waanigo waxa weeyaan bilo baryahan waan yar kala baahnay barnaamij qiimo badan baan maanta wadaa oo ku saabsan waxa weeyaan dadka ku nool qurbaha gaar ahaan waxa weeyaan dalka Jarmalka gaar ahaan barnaamijkan wuxuu ku socdaa dumarka Soomaaliyeed ku socdaa oo fikir khaldan markiiba iska dhaadhiciyay oo aaminay waxa weeye ragga Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha ama gaar ahaan ku nool Jarmalka waxa weeyaan waa sidaas laba shakhsiba wax geysay labada shakhsina Ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala ku sababay intee Jarmalka ku nool oo isqabta si qiimo badan isku qabtay intee deganeyd intee degan intee nin waxa weeyaan Jarmalka degan oo waxa weeyaan xaasle oo waxa weeyaan dumarkooda u dhibirsan oo dumarkooda u dulqaadanaya oo ciyaalka u riixaya oo gaadarka geynaya oo ka soo celinaya oo balamaha geynaya oo wixii termiin leeyihiin oo dhan la soconaya oo dhinacan ka saaraya oo xafaayada ka saaraya oo ka haynaya oo waxa weeyaan wadwada way badan yihiin marka dad baa waxa weeyaan waxay la wareegayaan dhinaca meelaha TikTok-ta iyo Facebook iyo ragga Jarmalka jooga waa raggeedii dhalay weeyaan raggaas oo dhan dambi may geysan rag wada fiican oo qalbi fiican oo wada fariida oo gibigoogu wada nirageeda ku jira waxa weeyaan samar badan oo dulqaad badan oo qiimo badan oo sharaf badan oo walaaladiina oo raggeedii qabaya oo raggeedii dhalaya oo raggeedii la dhashaya oo rag waxa weeyaan xil idigula ah mid galana ogaada dumarka qurbaha joogow mid ogaada waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaguma sababo laakiin way dhici jirtay naag ninkeega gubta naag ninkeega shirqoosha naag ninkeega xubintarka ka goysa dumar Soomaaliyeed bay ka dhacday naag ninkeega waxa weeyaan orfana geliso aakhira ka xidha way dhacday marka waxa weeyaan waxyaalahaas wuxuu qadar qofka bini'aadamka Ilaahay ugu tala galaya waa qof marka horeba adduunyadii laga afqabto masiiba ku dhacday waa adduunyadii ka tagay marka waxa weeyaan maaha ta kale dumarow ee qurbaynu joognaa maanta dad wax geysata adigu shakhsi ahaan dee lama dhaayo waxa weeyaan iyada wax geysatay ama qabiilkayga wax geysay sharciga keen bal gulaaya bit hosbis bal gulaaya hosbiskaaga baa laga qaadayaa bes wixii laga galay wixii aad gashayba cid kale oo kusaysa dad maanta cid disho ma ka soo ururiyo waxaas ma jirto adaa geystay adaa adduunka laga qarinaya waad fahanteen ma malinaya kulaylkii baa bilaabmay kulaylkii baa iska jira marka waxaynu u baahanahay dumarow raggu haddayna jirin ragga Soomaaliyeed dumarow maydu jirteen dumarow haddaydu jirin ragga Soomaaliyeed dumarow maydu jirteen waxa weeyaan ragga inaan marka hore laga maseersiin oo waxa weeyaan naagba naagtay ka maskax badan tahay amba qofkay ka wanaagsan tahay bay ka wanaag badan tahay oo ka sharaf badan tahay oo ka qiimo badan tahay gabadhay ka maskax badan tahay even waxa weeyaan dumarku amba raggu iska wada single mother iyo single father baynu u wada badanahay aynu u wada badnaana ee waxa jira gabdho waxa jira ka yimid waxa weeyaan ubad tusaalahan Afrika oo kale kaga yimid amba rag soo kala tagay oo waxa isku dhalay dadkii lama kala maarmayo oo waxa weeyaan wala soo wacaya amba ilmihii ninkii baa haya ay gabadhii kala tageen qofkan oo waxa weeyaan Jarmalka ka shaqeynaya tusaalahan dad la hor istaagto oo habeenkii waxa weeyaan todobada kacaya mar gelinka dambe gelaya mar gelinka dhexe gelaya mar saddexda habeenimo gelaya mar labada galimo gelaya adaa telefoon la dul qabsato ka waran inaad guursato taada iskuulkii ma tageen ka feedha xanuunaysa tusaalahan iyadoo ay badan tahay marar badan dee qofku waxbuu yar kala ma jirto dad tusaalahan qofka ka badbadayso kale waxyaalahaas oo kale waxay keenayaan waxyaalaha aakhira la iskaga xidhay ka kaalay waxyaalo kale waxa jira markuu ninku qabo duwaynaad waxyaalo badan waxyaalaha ninka ka maseersiinaya iska
waxa masiibada keenayo dhan bayna iska ilaalisaan ila dumar baana Soomaali baan wax walba ficil baad u sameynaysaa wax walba ficil baad u sameynaysaa rag baa garanaya wax ka daran lagu sameynayo oo haddana dulqaad badan oo iskaga qaba oo waxa weeyaan dumarkii iskaga qaba oo aan dulqaadanayna rag baa ku nool guyooga rag kale ka soo qada dooranayaan oo haday dhaana maxaa waxaan isna waa ilmaadeeraday iyo isagoon wax kale ka soo qaaday ilaa wax kale meesha ku sameeyay nacam qofkan bilaadanki ninka ragiisa waxa weeyaan uu ku qabaa meesha ilmaadeer iyo adeer iyo waxan iyo waxyaalahaas oo dhan baa isdhex yaacaya hadana ragga Soomaaliyeed ma eegaan uma danayaan imiga Talyaaniga aan ku nooleen joogo ninku had naagtiisa lambarkeega waxay gashanaysaa un hooyadeed iyo aabaheed iyo walaalkeed iyo isaga aabihii iyo hooyadeed nin kale ma gashan karto hadaa waa wadan gaaran joognaa tanna waxa weeyaan waxa Facebook ugu jira maxay WhatsApp-ka maxay lambarka caadiga maxay ibka ib waxay ka faracmato dhan baa ugu jira hadana ninka Soomaaliyeed kugu qabaayo xukun ma dhahay Allah li wuxuu ku dhaayay ma jirto على حال dumarow ragga Soomaaliyeed wax idii dhaama ma jiro waxa la yiri carabkaaga wax ku dhaama ma jira nimanka carabka dalaga gooyo ka hor ninka ragga Soomaaliga dumar waa sidaas adigana kadalik idii ka maarmayso marka xumaanta hal iska daayo haddaad maqasho qof maanta la dilay waa tagaykaas Yurub tanba waa la isku dilaa meelaha arkaysa rag baa waxa weyn dumarkaydi googooyaan guriga ku hoosela naaga ragooga dila waxaan waa sabab weeyaan waa qadar min Allah uma dhaxaysatani waxa weyn gaal iyo muslimba uma dhaxaysa Soomaali cid kale ba waxyaalaha ka dhaca shilalka dunida ka dhaca weeyaan waa shil weeyaan waa masiibo weeyaan waa qofkaaga Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu sababay ilaan qofkan nolosha la wadaagaysa waa xayaatadaadi weeyaan xayaatadaadi ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala kugu sababay waxa weeyaan meel kaaga geey marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hay naga ilaaliyo marka laba qof oo waxa weeyaan dhintay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa weeyaan ku sababay oo labadii qof ay sameeyay arinkaasina waxa weeyaan maanta ay mutaysteen cadaabo adduunyo aakhiraba oo jarmalka iyo waxa Yurubta qof dila khalaas cimrigiisa weeyaan hadana marka irbadba lagu mido lagu dhaxdilin jeelka laakiin aktarka waxay u badan yihiin waa cimrigiisa imise jirba leeyahay sharcigiisa inta ka hadhay inta markuu ilmo tusaalaan adoo 30 jira lagu xiray qofku xilmu ku asaasa qaato 70 amba 80 amba 90 intaas lagu xiraya ilaa dadka asaasiqiisu ciyaalnimo ku soo noqonayso ilaa intaas oo dhan baa lagu xiraya marka hubka hal la dhigo oo shaydaanka la iska naaro oo ragga Soomaaliyeed hal la daayo oo raggu waa raggiini waa aabbayaashiin waa walaaladiin inan walba wiil baa la dhashay inan walba way dhashay inan walba waxa weeyaan waa la dhalay inan walba ilaa aabba lagu yeeyay yaa aabba kuwa aabba Soomaaliyeed baa aabba kuwa marka inaynu xagga wanaaga wax ka eegno oo xagga sharafta wax ka eegno waa muhiim waa aniga bila oo waxa weeyaan raba inaan waxa weeyaan qalbiyadiina la jaaro waan dareensanahay waxyaalahan oo dhan waan dareensanahay waan ogahay waxa weeyaan waxba isku qasan waxa weeyaan dadka Jarmalka jooga aksarkoogu amba dadka qurbaa jooga aksarkoogu habeenkii waxa weeyaan ma seexano waxa weeyaan maalin oo dhan baynu jiifnaa kadib waxaynu ku soo jeednaa maskaxdii maalintii seexan lahayd bal habeenkii ku soo jeedaa tii waxa weeyaan habeenkii seexan lahaydna maalintaad ku soo jeedaa diiqadii baad yeelanaysaa hadalkii baad karhaysaa neerfii baa iska tusaya gibigaagu wasi baa tahay haddaan la isku dulqaadan haddaan la isdhabisan haddaan la isku samrin qof walba qofuu ka yimid imiga qofku ka waxdilaya ee waxaan sameynaya khalaas sumcad daro dadku u soo taaribay dadku yimid khalaas qofkii la dilayna khalaas muu mutaysan adduunkii kadab isaga muu mutaysan ganjeel baa la gelinaya gaal shiraa la gelinaya dhulka hoostiisa qofka la gelinaya dhulka hoostiisa cadceed ma arkayo khalaas cadceed uu kala daayeen wuxuu soo baxayaa amba la soo saaray markuu asaasaqo ifan haddaan lagu dhaxdilin jeelka marka in xagga wanaaga wax laga eego inaan urur samaysano inaan wax samaysano waa run oo in kolba qoyskii dhibaataysan
qoyskii waxa weeyaan hawlaysan aynu ogaano oo is ogaano waa arin laakiin ragga Soomaaliyeed oo dhan waa wada waxa weeyaan wada dheerti ragga Soomaaliyeed oo dhan waa wada sidan ragga Soomaaliyeed oo dhan waa wada waxa weeyaan dangerous no ceeb weeyaan waxa weeyaan haddaan waxa weeyaan dhabasaxada la sixin haddaan la isku noqon waxa weeyaan uliyadir haddaan waxa weeyaan la isku cudur daarin haddaan la isfahmin haddaan shaydaanka la iska naarin waa mushkilad haddaad aragto ninkiyo naagta isqabana iyaga unbaa israali gelin kara u fiirso habeenkaad isku yar kacsan tihiin xaaskaaga amba gabadhaada amba ninkaaga amba gabadhaada tusaale ahaan sida labadiin markaa isku kacsan tihiin habeenkaa aadna ma seexan isaguna ma seexanayo waayo waxbaa jira habeenkaad iska faraxsan tihiin idinkoo waxa weyn isku daalay isku dhididay baa kala seexanaysaa oo gebigiinuba midba meel ku dhacaya iyo waxa weyn habeenada kaleba maxaa keenay markaa haddaa qofku codaysay imka haddii naagtaada ku tiraahdo xabiibi raali ahaw shaydaanka iska naar anugu walaashaa baan ahay ninkaagii baan ahay bas ninkii markuu iska aamusay haddaad gabadhaadii ku tiraahdo anigu xaaskaygaa tahay walaashay baa tahay waxaasoo dumar aadan kaa raacay adduunka anigu cid kale danka meli adiga ayaan dankaa leeyahay adiga ayaan ku jecelahay maxaad ii dhibeen maxaad ii daalinaysa qofka dumarku way qalbi fiicantahay waa runtaa bay dhahaysaa marka way kacaysaa dharrag cunto yar bay kaaga soo tuuraysaa dharrag waxaa ku way nafisaysaa dharrag cadar yar bay isku soo shubaysaa dharrag wakaa alxamdulillahi rabbil caalamiin bartaa ka bilaamaysa iyo waxa weeyaan allahuma jami shaydaan wa jami shaydaan ma arsaaqsanaa ma garatay ducaadii dee ma garatay okay marka walaalayaalow ragga daaya dumarow ragga daaya waxa weyn waxa niyada ka saara bismillaahir rahmaanir rahiim aafadana soo qashay niyada ka saara oo marka waan dheereeyay aad baa idin salaamaya briyaanda waa la kulaaday kuleelkii baa iska batay shaydaanka la iska naaro mukiifka hal la shito talaba dhibkayna haystaan waxa weeyaan stress waxaanu ka qaadnayba nimcadan aynu ku jirno digaagadan hoosta la gashanayo kaarkan lacagta lagala soo baxayo haafiya shaarkan la xidhanayo saraawiishan dhajiska la xidhanayo boorasadan la jiidanayo meesha marmarka ilaa meesha tareenka ilaa baska lagu jiidanayo ciyaalkan aan qaydka lagu xambaarayna waxa weeye wada gaariga lagu jiidayo wixii baanu mashmash ka qaadnayo iyo stress iyo balaayo isku kacayna dad waxaan dhuxul shidan jiray Soomaa wala dhuxul soo iibi hilibka kari iyo radada gurid dhinacan kale ka baxdara naaqoosh qaraac baq na daarda naga war xaaj dad ma naara jirkaan biyo noo soo dhaam dara ora kan yar ka riixo saddex caado biyo soo dhaam dara dad waxa ku soo koray waxaan la yaabanahay nolosha tan deemeenu baran marka waa garteen waxa weeyaan iswada gumaadno inaynu iswada eryano iswada waxa weeyaan galgal noloshana sida kale inuu isticmaalna marka dad waxaan ay lacag waaweyn watay oo kiish lacag wata oo dhinacan ku wata kaarkan iyo waxaan baynu la yaabanay ma garan oo marka waxa weeyaan aynu nolosha caadi ka dhigano aynu faraxno nolosha caadi ka dhigano aynu faraxno adduunyadu waa in yar ilaahay subxaanahu wa tacaala ragba ugu talagalay ilaahay dad baa ilaahay ugu talagalay iyagoo firaashkooda jiiftay inay nafta kaga baxdo qaar baa ilaahay gaari jiirsinaya ku sababaya qaar baa ilaahay qacanka xaq dara ku sababaya qaar baa waxa weyn isdaldalaya qaar baa sibay naftu uga baxda intaba maqalnay mid isdaldalay mid la dilay mid gaari jiiray mid isagoo cuntaynaya dhintay mid isagoo hurda aan soo toosin intaba maqalnay waxaan waa maalintay kaa dhamaato tani khalaas maalintay naftu kaa dhamaato waa lagaa qaadaya camo waana dhimanaysaa camo wax allaali wax ku hagaagaya camo ma jiro ma garat marka adeerayaal aynu dhaleecada iska dayno ragga Soomaaliyeedna hala daayo ragga Soomaaliyeedna waa aabbiyaasheen waa naga waa raggii dhalay waa ragga waxa weeyaan hadhicin hadhabin hadheelin kuwa ragga ku haya waa ragga kugu heesaya waa ragga kugu oolalaya waa ragga jacaylka kugu abuuraya waa ragga waxa weeyaan aad u dawaqayso waa ragga aad u waalanayso waa ragga buufis kugu dhacaya waa ragga kaa farxinaya waa ragga kaa ooyinaya waa ragga kaa inaba caadi ma marka ragga Soomaaliyeed hala daayo hal laga haro fikirka khaldan ee la iska dhaadhicinayna adeerayaal oo iska haro